السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مامون جنال أصحاب تقاليقة ماشان وحينيو هيسا قراء عن عادي إهين عنجيلو وما شاء الله فاصولي ديدا أما مهرقة ديدا شاع عديس وهيلك يسكرت ودميسان تفاصيل كيساء وكريه إلى سعودة داوشو عن أصحاب تقاليقة أصحاب تقاليقة maamuno janaal sheekadii weli wadaa waayo quraaco waxaan iisoo wadaa inaba caadi ahayn. waa kaasaa kuleyba habeenkii aan ka bilaabay canjeeladii aa qasay subaxiina waxaa waaye faasuuliyadaan ii karinayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. iishaa waxaan leeyahay quraac wacan oo wanaagsan. waa kaasaa cajiinkii baaquligii aa soo qaaday sokor yari cusbo cajiinkii aa ku shubay galaas biyo kululna geesoo ii yaalaa bakeeri biyo kulul waa ku darayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. saa ula socotaan waa kaasaa biyihii ku darayaa kadibna waa garaacayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. wuxuu kusoo baxayaa cajiin indha leh oo maasha allah haddii dubtid oo quruxdiisa inaba caadi ahayn dhammaystirneen. anaga soomaali haddaanahay dhaqankeena waxaa waaye canjeelo cuno. waa kaasaa maasha allah canjeelaana caadi ahayn. maamuna janaal maanta waxay niila wadaagaysaa quraac inaba caadi la ahayn oo borotiin leh oo wax walbaba maasha allah. maharagada waxaa layiri borotiinay leedahay waxaa waaye jismigay u fiican tahay. waxaanii leeyahay caafimaad iyo nabad ha lagu wada cuno. qof walbaba saas hadduu u samaysto waxay kasoo baxaayo quraacaaba inaba caadi ahayn nafsada u roon maasha allah saa ujeediin daawasho wacan. saa ujeediin cajiinkii aan dhammaystirayaa kadibna waxaa waaye baaqii kale ila soconaysiin asxaabta igu qaaliga ah. daawasho wacan oo wanaagsan. saa ula socotaa meeshaas waxaa igu jarjaran hal basal oo weyn oo si yaryar u jarjaray 6 xabo yaanya ah galaas faasuuliye ah oo baaquli ku shuboo jijibiyey 4 xabo ukun ah. intana waxaa iigu jiro si fiican aan iigu soo noqayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. sawirka gees walba inka tusayaa faasuuliyadii meeshaas iigu jirto. intana waxaa iigu jirto 4 xabo ukun ahayd. intana waxaa iigu jirto filfishii iyo maraq maajiga qudaarta kabsartii yaanyo shiishiidii. waa kaasaa waa karinayaa waxaa kasoo baxaya faasuuliye aan inaba caadi ahayn oo maasha allah ah oo nafsad u roon. daawasho wacan asxaabta igu qaaliga ah. saa ujeediin taawadii aan soo qaaday markii wixii diyaarsaday habeenkiina cajiinka qastay taawadii aan hadda soo qaatay dabkaan saarayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. dabka markiin saarana saliidaan ku shubayaa faasuuliyada saa aan iigu sheegaya hadda waxaa waaye saliida badan caafimaadka uma fiicna bardu laakiin saliida kor ka muuqata ma ahan. faasuuliyada saliid fiican ay qaadataa. saliida inay kor sabeysa ma aha. saliid fiican aan ku shubayaa waaye maharagada saliida ay cuntaa. ukuntana kadaalik waa kaasaa saliidii aan qiyaastay kadibna intay kululaanaysaan sugayaa. daawasho wacan asxaabta qaaliga ah. saa ujeediin basashii aan ku daray waa daboolayaa markay waxyar gaduudatana waa isla saa ujeediin basashii aan daboosha ka qaadayaa. basashiioo gaduudatay oo qurux noqotay oo maasha allah ah waa ujeediin oo malaynaa dhinac walba inka tusay hadduu ilaahay ka raali noqdo. waxaa waaye basashiioo gaduudatay yaanyadii 6 xabaan ku daray. saa ula socotiin waa kaasaa inaba caadi maaha. waa macaan tahay borotiinay leedahay nafsaday u roon tahay. yacni haddaa quraacad haddii lagu sii madiidaysid waa macaanta. waxaanii leeyahay ila samaysta waynii cajiminaysaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. asxaabta igu qaaliga hadda waxaan sugayaa inaan daboolo oo waxyar ii hurto kadibna wixii kasoo baxaa iskala socono. daawasho wacan.
yaanyadii oo hurtay waa taasaa oo waxyar hurtay laakiin aana weli shiilmin. Saa ujeediin waa jijibinayaa, markiin jijibiyo waa saa ujeediin waxaan rabaa inay jajabto ay shiilmato. Weli ma shiilmin, waxyaraa u dhima muddo 7 daqiiqay karaysay. waa kaasaa markay shiilmatana waxaa kasoo baxaya waxaan caadi ah. saa ujeediin way shiilmatay yaanyada. Markay shiilmatana dadka oogama darsoonto, xoogaa saliidaa kor usoo baxday. waa kaasaa si fiican u fiiriya, meeshaasna shaahi ayuu ka waa kaasaa iyadoo shiilmatay oo maasha allah ah, oo qatara oo indhaha u roon oo nafsada u roon. waa shay borotiin leh maasha allah ah, inaba caadi ahayn. asxaabta markay shayga shiilmatana dadka uma darsooma. hadda aynisaan ii sheegay kabsartii, filfishii, reekihii oo cadaay iyo marqmaajigii khudaarta ahay intaasaan ku daray. bahaaraad wixii jikadaada haysatid haddaad ku samaysid maasha allah ku soo baxayaa. ma ahan maamuna halaasay ku darto ku dar, wixii jikadaada yaal wixii ku karisid waxaa kasoo baxaya waxaana inaba caadi ahayn. hadda waxay sugaa inay isku huuraan. saa ujeediin hadda way isku huurtay. saa ujeediin faasuuliyadaan ku darayaa, kadibna faasuuliyada markii ku daro waxaa waa yaanyadii, basashii, saliidii oo shiilmatay iyo shiishiidii oo lagu daray isbeysiskii ama bahaaraadkii ama xawaajiyadii saa u taqaaniin. intaba 3daas shay saa u taqaaniin si fiican uu qasayaa inay isdhex gasho oo faasuuliyada dhanaanka gees walba ka galo. waa kaasaa waxaana ku darayaa nus bakeeri biyo ah. kadibna waxaa waaye waa cuni kartaa. hadaartidna waxaa waaye dhamaystirka ee maamuna janaal ee jecleed insha allah aa arkaysiin. haddii kalena saan haddaa cusbo ugu dartiin oo waxyar biyo ku dartiin ay 5 daqiiq hal mar soo karto waxaa kasoo baxaya faasuuliyo borotiin leh oo caafimaad leh oo maasha allah ah, aan la nacaynin. waa kaasaa sheekada gabagabay noo mareysaa. saan waa lagu cuni karaa dadka aan ukunta cunin. saa ujeediin waa wax borotiin leh oo nafsada u fiican oo shay aan inaba caadi ahayn. faasuuliyo ama maharago. waa kaasaa ujeedaa dhacaankii nuska bakeeriga waa ku kara. haddaa rabtid waxaa waaye waa ku dami kartaa, laakiin aniga waxaan ku jeclahay macaa ukun. macaa ciyaalka waxay ku jecel yihiin inay ukun ku cunaan. maasha allah wax allergy qabo naguma jiro. qofkii allergy ama neef ama waxaas qabo waxaa waaye ukunta way dhibtaa. saas dartiisa waa ka dhaafa kartaa. haddaa ka dhaaftidna faa'iiday leedahay inaba caadi maa. borotiinka iyo wax walba waa joogaa. haddaa ku dartidna bardo faa'iido kale leedahay. saa ujeediin muddo 7 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo aan walaaqayaa. aan ukuntii iyo waxaa isdhex gelinayaa yaanyadii aan shiilay iyo maharagadii. saa ujeediin waa kaasaa dabkana zaa'id uma dheero, waxaa waaye dab qiyaasa oo dhexdhexaada waaye. saa ujeediin muddadii 6 daqiiqo ilaa 7 ilaa 8 daqiiqa hadday dhamaatana waxaa waaye waa daminayaa. waxaa waaye canjeeladaada dubo ku cun, inaba caadi maaha. anaa dhadhamiyo cusbadaa soo hartay. cusbada qof walbaba carabkiisa. qof wuxuu jecel yahay dhanaan yar, qof wuxuu jecel yahay dhanaan zaa'ida, qofna wuxuu jecel yahay dhexdhexaad. marka waxaan leeyahay asxaabta igu qaaliga ah, cusbada waxaa waaye carabkiina wuxuu qaato hadduu ilaahay ka raali noqdo. saa ujeediin waa ii dhamaystirmi rabtaa. waxaa u dhibnaay waa kaasaa ujeedaa inaba caadi maa. koleyba markaan walaaqaya ka dareemaysin dhadhamisna ani xaggeyga waxaa waaye inaba caadi maa. maasha allah waaye daawasho wacaan. saa ujeediin hadday nus aad ka arkayseen shaahi waaye. waa biyo iyo sokor iyo heel iyo qarfo iyo dhagayare aani isku shiitaa. waa kaasaa shaah dhammaystiran. caanahana barda koraa uga darsanaynaa. shaah karis qof la tusaayo malaha, nimanka xataa waa yaqaanaan. laakiin quraacdii oo dhammaystiran waxaa jeclaystay quraacdii oo dhammaystiran inaan nii soo geliyo. haddana hadduu ilaahay ka raali noqdo canjeeladii oo qasay oo maasha allah u qasay oo indho leh
waxaan rabaa inaan igaaga soo tuuro kadibna aan quraacano hadduu ilaahay ka raali noqdo. waa kaasaa canjeeladii aa ku shubayaa waana wareejinaya. insha Allah waxaa kasoo baxaysa canjeelaa inaba caadi ahayn. indhaheeda waa ujeediin, wareegeeda waa ujeediin, gees ma u dheera geesna ma u gaabna. maasha Allah, canjeelo dhammaystiran kaamil. saan horeni usoo sheegay mar labaadna aan igu sheegayo, canjeeladii oo dhammaystiran gaduudkeeda oona meelna ka gubanin meelna ka cadeen. waa kaasaa dabka u qiyaasan. faasooliyadii, shaahi cadeyska oo heelka iyo wax walba u dhammaystirnayo. waxaa waaye quraac oo borotiin ah oo nafsada u fiican oo maasha Allah qof walba haddaa siisidna aana diideynin inaba caadi ma. waa kaasaa asxaabta igu qaaliga ah, maamuna waxayna leedahay janaalkiina waaye. waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan leeyahay inta is arki doono waxaan quraac wacan. asxaabta igu qaaliga ah, like, subscribe, share, comment hoos igu reeba anoo raaliyan iga jawaabaya. bye.